بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل wanaagsan galab wanaagsan arkan waa wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo sheegay in aan loo hakan doonin culimada ahlus sunna wal jamaa Ethiopia oo ka walacsan kulan ay soo agaasantay Kenya oo Nairobi ku dhaxmaray Axmed Madoobe iyo sidoo kale Maadey wabiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay degmada Afgooyo iyo xaalad adag oo ka jirta degmadaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo guddiga doorashada u gudbiyay sharciga doorashooyinka qaranka Soomaaliya cunaqabateynta saaran Kismaayo ay ku shaqo waayeen 200 oo qof dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay askartii Faransiiska ee ku dhintay gudaha dalka Mali dibadan waxaan idinkaga haynaa jilaacan ah oo geeriyooday isagoo filan jilaya intii aad daawateen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ayay ahaayeen waana galabnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha 11 November 2019 haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe dhasi aad u hesho ogaha dahsoon halkan aan ku soo gudbino kuna soo dhawow faahfaahinta warkeena wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo maanta dib ugu laabtay Dhuusamareeb ayaa ka hadlay xaaladda magaaladaasi gaar ahaan dhismaha maamulka Galmudug ee loo wada dhan yahay Sabriye oo xubno ka tirsan dawladda iyo saraakiil ku soo dhaweeyay halkaasi ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudageli doono doorashada Galmudug sidoo kale waxa uu tilmaamay in aysan u hakan doonin ahlus sunna oo hoggaankeedu ay si weyn uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada dawladda ee dhismaha maamulka Galmudug wasiirka ayaa sheegay in waqti badan uu kaga baxay Dhuusamareeb isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo caqabadaha haatan ka jira magaalada Dhuusamareeb lama oga sida ay xaalku noqon doonaan iyadoona hoggaanka ahlus sunna ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka abaabulayaan deegaano ka tirsan maamulka Galmudug doorashada Galmudug oo socota ayaa waxaa la filayaa in bisha soo socota ay ka dhacdo tan madaxweynaha iyo sidoo kale midda gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa dhowr jeer waxa uu kula laabtay magaalada Dhuusamareeb iyadoona dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso xaaladda deegaanada dawlad goboleedka Galmudug iyadoona dawladdu ay bilihii u dambeysay ku howlaneed sidii loo dhisi lahaa maamul Galmudug oo ay u wada dhan yihiin shacabka deegaanada dawlad goboleedka Galmudug sidoo kale waxay wararku sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu kulan la qaato guddiga farsamada ee maamul dhisida maamulka Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dawladda Ethiopia ayaa ka walacsan xaaladda ka jirta deegaanada gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya dawladda Ethiopia ayaa walaac ka muujinaysa kulan ay abaabushay Kenya oo Nairobi ku dhaxmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi Maadey waxaana sidaas qoray wargeyska Addis Ababa kulanka ayaa waxaa si gaar ah u fududeeyay isla markaana lacag ku bixiyay bangi gudaha waddanka Kenya ka howlgalan xiisada Jubbaland iyo Ethiopia ayaa sare u sii kacaysay wixii ka dambeeyay bishii Agoosto ka hor doorashadii Axmed Madoobe markaasi oo mas'uuliyiinta Jubbaland ay u diideen garoonka Kismaayo inay ka degto diyaarad ay saarnaayeen ciidamo Ethiopian ah Jubbaland ayaa sidoo kale toddobaad ka hor cabasho ka muujisay faragelin xoogan oo ciidamada Ethiopia ay ka wadaan gobolka Gedo iyaga oo taageeraya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi Maadey ayaa bishii Agoosto ka hor inta aan xilka loo dooran waxa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uga digay faragelinta Jubbaland Kismaayo waxa ay ku taala goob muhiim ah haddii halkaas isbedel uu ka dhaco waxa ay saameyn doontaa waddanka oo dhan waxaan aaminsanahay in Axmed Madoobe uu shaqo wanaagsan qabtay mana huba in haddii dad kale ay meesha yimaadaan in amnigu sidan sii ahaan doono
waxaana ka baqayaa haddii aan fariisan farno gelinka halkaas oo ay saameyn ku yeelan doonto guud ahaanba gobolka oo dhan sababtoo ah waxaa jira ciidan adow ku ah Ethiopia oo Axmed Madoobe uu hadda la dagaalamayo lama yaqaan ujeedada iyo sidoo kale waxa looga hadlayo kulanka Nairobi. Axmed Madoobe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Mahdi sida uu qoray wargeyska ka soo baxa Addis Ababa oo gudaha magaalada Addis Ababa ka soo baxa. dhinaca kale sargaal sare oo ku dhow madaxweyne Axmed Madoobe ayaa beeniyay in uu wax kulan uu dhexmaray Nairobi Axmed Madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha ururka ONLF. wararkan iga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed dalkan Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay webiga Shabeelle uu ku fatahay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi gaar ahaan dhinaca degmada Afgooye. webiga ayaana ku soo fatahay xaafada Baalguri iyo sidoo kale Damaley iyadoona dadka deegaanku ay haatan bilaabeen in ay ka barakacaan. fatahaadaha ayaa timid kadib markii daadad ka dhashay roobab xoogan oo saacadii la soo dhaafay ee ka da'ay gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa durbaba tagay xaafadaha oo ku soo fatahay webiga Shabeelle. Najac ayaa sheegay in haatan ay wadaan gurmad xoogan oo loo fidinayo dadka ay saameeyeen oo degmada Afgooye ku nool iyo sidoo kale duleedkeedaba. sidoo kale waxa ugu baaqay hay'adaha samafalka iyo dowladda federaalkuba in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkaasi oo ay u sheegeen si loo badbaadiyo. xaaladda ayaa haatan ka sii daraysa waxaana gudoomiyuhu uu sheegay in weli ay sii socdaan biyuhu isla markaana iyagu ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in dadkan gurmad loogu sameeyo. gudoomiye Najac iyo sidoo kale Ibrahim Carab oo ah gudoomiyaha degmada Afgooye ayaana booqasho ku tagay halka uu webigu ku fatahay oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya ee dib u eegista ku sameyn doona waxaana ay ka bedelayaan sharciga doorashooyinka ee ay golaha wasiirada Soomaaliya ansixiyeen 2 bishii May 2019 ayaa shaqadoodu soo gabagabeeyay. guddigan ayaa dhowr maalmood ka hor gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan u gudbiyay sharciga doorashooyinka oo ay ka bedeleen dhowr qodob balse waxa ugu weyn ugana muhiimsan 3 qodob. saddexda ku dhow gudoomiye Mursal oo ay noo sheegeen guddiga ayaa meesha ka saaray qodobkii 56 ee sharciga doorashooyinka ee ansixiyeen golaha wasiirada. qodobkan ayaa u ogolaanaya in madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaankuba ay muddo 2 sano ah waqti kororsadaan haddii dalkan ay ka dhiciyso doorasho sababi jirta awgeed. sababaha la xusay ee doorashooyinku ay ku baaqan karto ayaa waxaa ka mid ah amni darro baahsan, dilaaca cudurrada iyo sidoo kale si isqaanayso abuuro daadad iyo duufaano ka dhaca gudaha dalka. guddiga ayaa go'aamiyey in wax ka badan 6 bilood oo ah waqti kororti farsamo aan la siin karin madaxweynaha iyo baarlamaanka taasi oo ay wax noqon karaan haddii arrimo farsamo ay u sii waayeen guddiga doorashada qaranka in doorashadu ay ku dhiciyso waqtigeeda. guddiga ayaa sidoo kale go'aamiyey in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ay deegaanada ay ka soo jeedaan ka soo doortaan shacabka iyaga oo adeegsanaya nidaamka qof iyo cod ee doorashada deegaanada badan oo micnaheedu yahay in xildhibaan kasta laga soo dooranayo deegaan doorashadiisa ee maamul goboleedyada. tani waxay meesha ka saartay rabitaanka villa Soomaaliya ee ahaa in dhammaan xildhibaanada laga soo doorto hal deegaan doorasho oo ay sheegeen taasi oo saamix lahayd in ay dad badan taageersanaadaan meel iskugu keenta oo ay villa Soomaaliya fursad u noqon lahayd. go-aanka ugu culus ee guddiga gaaray ayaa ah in madaxweynaha cusub ee ay soo doortaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka sida uu dhigayo qodobka 89 ee dastuurka farqadiisa koobaad oo leh
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waa in ay doortaan labo gole oo baarlamaanka oo waqti fadhiya waxaana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya guddiga ayaa meesha ka saaray qodobkii ay rabtay villa Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha ay doortaan shacabka balse aan shacabka oo dhan ahayn oo ahaa dad hal meel la isku keeno oo la leeyahay waxa ay wada matalayaan shacabka taasi oo ogolaan lahayd in dad gaar ah loo soo xulay in meesha ay ku codeeyaan isla markaana ay u doortaan qofka iyagu xilligaas ay u arkaan in ay dooran karaan isla markaana qarashaado badan ku bixinaya dowladda Soomaaliya ayaa waxay war ka soo saartay 13 askari oo dowladda Faransiiska ka soo jeeda oo ku geeriyooday gudaha dalka Mali war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad ugu xun tahay shilkaasi sidoo kale waxa ay wararka lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay taasi u dirayso dowladda iyo sidoo kale shacabka Faransiiska qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa kaloo lagu sheegay in wadamada Soomaaliya iyo Faransiisku uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo soo jireen isla markaasna wax wada qabsi ah 13 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka Mali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood oo helicopter ah xilli ay ku gudi jireen howlgalkan kooxda jihaadiyiinta ee ka dagaalama gudaha Faransiiska gabagabada warkeena ayaa daawanaysan markana dibadda jilayga lagu magacaabo Godfrey Gono ayaa masraxa ku dhacay isagoo jilin sameynaya wuxuu qayb ka ahaa filim lagu soo bandhigayo dhaqamada Shiinaha ninkan oo 33 jir ah waa 35 jir ah ayaa waxa lagu soo casuumay filimkan taxanaha ah ee telefishinka ka baxa kaasi oo ay u matalayay inuu yahay actoraha filimkaasi soo saaraha waxa ay sheegayaan in uu ku dhacay masraxa sidaasna uu ku geeriyooday 2011kii wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee Aasiya isla markaana ka soo jeeda oo qabtay xayeysiimaha qaaliga ah ee dalka Shiinaha guud ahaan baahinteeni galabnimo waanaga intaas hadii aad ku cusub tahay channelkeena wali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe dhahdo waana mahadsantihiin saaxiibayaal nabad